aan su'aal ku weydiiyay Soomaaliya ma noqon kartaa sida Rwanda oo kale burburkii ma ka soo kaban kartaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma noqon karaa hogaamiye la mid ah Paul Kagame sidoo kale qabiilada Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed ma noqon karaan sida qoomiyadihii Tutsi iyo Hutu inay heshiis qaataan oo heshiiyaan dalkoodana horumariyaan ma samayn karaan haddaba maxaase u diidan inay sameeyaan intaa waliba waxaa jira waxyaabo badan oo annagu aan Soomaali haddaan nahay isaga dhownahay ayaa jira dadkaasi waa qoomiyada kala fog oo aan xataa isu ekeyn waxa kale jira waa dad gaala ah inagu halka aynu muslim nahay inagu halka aynu hal qoys nahay sidoo kale calaamad ay wajiga ku lahaa jireen qabiil walba magaciisa ayaa wajiga uga qornaa dadka Soomaaliyeed lama kala sooci karo waxa jira xiliyadii dagaalada sokeeye xataa dad badan oo ku badbaaday qabiilo aysan ahayn waxa kale jira dad badan oo qabiilo kale dhex daga laakiin aan laga soo dhex qaban karin qofka Soomaaliga ilaa uu hadlo oo isagu is sheego cidda uu yahay cid aqoonsan karta qabiilkiisa ma jirto waxyaabo badan aan ku kala duwanaa waxa jira waliba anagu waxaan isu geysanay wax weyn ma ahayn markii loo eego waxa Rwanda ka dhacay 100 maalmood ayaa waxa lagu dilay 1 milyan oo qof ayaa lagu xasuuqay waxa kale oo ay nooga duwan yihiin ayagu waa naga dhaawac dambeeyeen 94tii ayaa dhibaatadoodu dhacday annagana 91dii ilaa hadda waynu heshiis la'aanahay halka iyagu ay heshiis inta ka qaateen dalkooda horumariyeen sida ay tahay iyagu milyamis iska dilay xasuuqna isu geystay maanta waxay haystaan amni iyo horumar inagu aanan haysan haddaba maxaa u diidan in qabiilada Soomaaliyeed oo walaalaha ah oo ehelka ah oo aan la kala aqoon oo islaamka ah oo isku deegaanka ah oo isku afka ah inay heshiis qaataan maxaa u diidan su'aasha kale Xasan Sheekh Maxamuud ma noqon karaa Paul Kagame oo kale Paul Kagame waxa uu ahaa jamhad duurka ayuu ka yimid jamhadayn ayuuna ku qabsaday dalka sidaas oo tahay ma aargudanin waliba qabiilkiisa iyadoo la xasuuqay ee waxa uu sameeyay dadkiisa sidoo uu horumari lahaa una heshiisi lahaa ayuu ka shaqeeyay cadaalad isdhexgal isla xisaabtan wixii dhacay iyo sidoo kale faquuqa oo aad loola dagaalamo faquuqu waxa uu kamid yahay dambiyada qaran ee dalkaas ka jira sidoo kale xitaa lama ogola labada qabiil magacyadooda in lagu dhawaaqo ilaa hadda Rwandais ayaa lagu soo koobay يعني أنا جو كسر كوبنا يوكل الصومالي وحكلنا إسكت جوجنا وكله كديجنت هذا ما حاود جدا دكتور حسن شيخ محمود مدحوينها الصومالي أو أهل متعلمة سيدو كله هير أقوان تبيه جدي جاري معلم ضد بدن صوبر بارية إنه ضد كيس ديبو هشيسين أنت أوقبته هشيسيو هجاميو ما حاود جدا وحيا استان وحيا بدن وأنا جو أنا هيسن وضم بدن أفريقيا أول جود بربر جارينا أيسن هيسن وحيا استان أمني sare sidoo kale waxay haystaan aqoon sare iyo sidoo kale waxa ay haystaan dhaqaalahoodana waa high uu sareeya caafimaadku waa bilaash waxbarashaduna waa bilaash caasimadda Kigali ee Rwanda waa caasimadda Afrika ugu quruxda badan kaalinta koobaad ay ku jirtaa dhaqaalahan markii la eego adduunka dhan markii dhaqaalahan loo eego waxay ku jiraan dabaqada dhexe dabaqada hoose mar hore ka soo tageen wadamo badan oo Afrikaanana dabaqada hoose u badan yihiin oo ku jiraan 2050 waxa ay higsanayaan inay gaaraan dabaqada sare hadaba inaga maxaa nagu dhagan ma waxbarasho firiya haysanaa ma waxaan haysanaa caafimaad firiya ma nabadgelyo amniya haysanaa inaga waliba burbur ahaan ka hor burburnay hadana dad ahaan isaga dhow maxaa nala haray Afrika waxay soo martay dhowr marxaladood marxaladihii boqortooyooyinka marxaladihii gumeystaha marxaladihii xorriyadda laga qaadanay gumeystaha waa kontameeyadii ilaa 60meeyadii Afrika xiliyada xorriyadda xiliyadaas ahayd in Soomaaliya waxay xorowday 60kii Rwanda waxay xorowday 62dii inkastoo Soomaaliya dimuqraadiyadda doorasho ay ku bilaabatay waxay ahayd Soomaaliya wadankii ugu horeeyay Afrikaana oo xil si nabada lagula kala wareego Rwanda halka iyadoo kaliya talisyo iyo caqabado kale iyadoo soo martay laakiin Soomaaliya si wanaagsan ay ugu bilaabatay marxaladda xigtay waxay ahayd sagaashameeyadii wadamo badan burbureen sagaashameeyadii wadamo badan baa burburay Soomaaliya kamida Rwanda laftigeeda kamida Algeria kamida Liberia Ireland Sri Lanka Mali Philippines Niger wadamo badan kamida oo xillidaas burburay inta badan way ka soo kabteen laakiin anagu meeshii baan taaganahay waa soo kabalaana hadaba ummadeena Soomaaliyeed oo halka qoys ah maxaa haysta ciladu waa hogaamiye xumo cilada Soomaaliya ka jirta waa hogaanka Soomaaliya waa siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhibaatada ugu badan meesha ay ka jirto hogaamiye toosan ilaa la helana Soomaaliya meesha ay taalo ka dhaqaaqi mayso markii runta laga hadlana qabiilada Soomaaliyeed isma necba
ismana dagaashana laakiin waxa isdirsan waa siyaasiyiinta siyaasi walba waad aragteen sida uu dad meel ugu oodanayo calanna ugu samaysanayo waxa Soomaaliya qarribaya waa siyaasiyiinta waa in siyaasiyiinta la bedelaa siyaasi aan xisbi ku imaanna waa inuusan hadda ka bacdi Soomaaliya madax ka noqon karin haddaba adiga aragtidaada waa inuu muhiim Soomaaliya ma noqon kartaa Rwanda oo kale qabiilada Soomaaliyeed ma noqon karaan sida Tutsi iyo Hutu u heshiin karaan madaxda Soomaaliyeedna ma laga heli karaa Paul Kagame oo kale tusaale ahaan baa Xasan hadda u soo qaatay aragtida waa inuu muhiim xagga hoose faalada Nuureb wassalaamu calaykum